dhaaftid okay shabaqa wuxuu leeyahay ilaa de jawiga shabaqa inaad dadka u sheegtid way ku socdo dadka badankiisa halkaas ay ku hodmeen halkaas ay ku dhinteen dadka badankiisa halkaas ay ku dhinteen aniga waa soo baxnay marka soo baxnay waxaaba jooga xeebta dawladda Yemen waxay sabtay ciidan ay sabtay military ah ciidanka militariga waxay wataan qoryahan gaariga Cabdibilah la yiraahdo oo qori dhishi ka saaran qofkii soo dagaba qoriga lagu qabanaya meesha la fariisinaa qoriga lagu qabanaya marka dawladdii way u jeedaa dadka inay dhamaanayaan looma gurmanin waxa taa ka sii daran qolooyin waxa maxaa akhwaan muslimiina loo yimaadeen hal wajireen adag wajireen waxa saxligaas way qolooyinkii akhwaan muslimiinta noo yimaadeen kuwaas hal doon keeneen waxay dhaheen dadka tabardaran ayaan qaadayna caruurta iyo caruurta 9 feet cuniga dambiila lagu soo ridayaa de wax kale lama hayo dara lagu soo xirayaa dambiisha waxa loo dhiibayaa doonta saasa lagu soo wadayay marka waxa taas ka sii daran markii ay soo qaadaan annagii waxa dhacday shacabka Yemen waxay maqleen in dawladda saas lagu sameynayso inuu soo gurmadeen shacabka Yemeniinta si Soomaalida Yemen deganeed waxa jiro dad Yemeniin noqdeen moogta Soomaalida nafteeda laakiin wali cadameedka way soo gurmadeen reer cadameedka aad noogu soo gurmaday oo dhar iyo cunto iyo qofki soo baxo buskut iyo waxa ay xeerta xogaa dadka energy helnay marka dadkii oo dabaash yaqaanay annaga waxaan qaaday Soomaalinimo walaalnimo dadkii walaalaheena oo isla wada saarneen doontii wali qaar meesh ku xayran yihiin waxaan sameeynaa marka inaan laabano askariga kuma ogolo waa dhuumanay badda xoog ku galnaa asoo carrinaysid xabad ka soo dabariday waa gelaysaa badda galnaa dad soo badbaadina sababta dawaashii aan naqana meel xeeban ku dhalanay marka waxa la yiraahdaa waxaan tagnay dadkii soo badbaadinay marka ilmo yar oo biyo dhargay oo waalidkiisa soo xambaareen ay la soo dabaasheen ayaan soo qabanay oo ilmihii biyo dhargayna ilmihii oo la laasan yahay muxuu ahaa waalidkiina muxuu ahaa markabku ku hareen maya waalidku way soo qaadeen waalidku way soo qaadeen markay soo qaadeen qofku ilmihii soo qaado oo qofkina biyo dhargo waxa waaye mugtahay muxuu ahaa qof u baahan in la kaalmeeyo marka waxa dhacday waalidka qaar waalidkooda keensadeen qaar waxa jiray ilmo yar oo nimankan mutawiciinta oo carabta ay keeneen oo ilmo yar ay soo qaadeen laakiin waalidka aan la soconin oo biyo dhargeen kuwiya anaga marka aniga mid kale yar kale Axmedeey ah la yiraahdo aba ilmo yar oo mid 5 jir uu yahay wiil oo aad u biyo dharga anay qaaday ambulance waxay leedahay qola ambulance banaanka keenay qola ambulance oo la yiraahdo MSF Medicine Sans Frontières idbaa bila xuduud al yiraahdo dhaqaatiirta xuduud leh qoladaas marka ambulance ka shaqeeyaan dadka oo tacbaanka ah ay qaadayaan marka qoladii cunug yar la koray Axmedeeyne wuxuu soo qaaday gabar yar oo dhalin aniga asaga waa baxnay isbitaalka weyn Jamhuuri oo Yemen معلّة تواهي meelaha ku yaala waxa la isbitaalkii waxaan qabnaa dhar ma wadano dabagaab yar aan xiran ciyaalna waa leeyahay halkaas dabagaab yar waa fariiqaawanahay cunugan yarna waa wataa biyo dharkay oo dhax cadeynaya isbitaalkii aan ambulance gudaha gelisay waxaan noo soo gurmadeen Soomaali oo Yemeniin ah oo jambadi u xiran dhar iyo alaab iyo wadaan oo isbitaalka loogu imaadeen oo dharkii meesha ku labisanay marka niyo iyadoo taas ay jirto oo ilmihii ay soo naxeen ayaa waxaan lagu soo celiyay anagoo labisan oo boorsooyin wadana dhar wadano ayaa waxaan ku soo laabanay 2 maalin isbitaalka joognay meeshii lagu soo celiyay xaradana askar warjeyso marka meeshii tendooyin laga dhisay waxa degdeg u yimaaday oo arintan aad aga xanuunsaday dawladda Jarmalka madaxweynaha Jarmalka degdeg ku yimid oo yiri dadkan saan loo dhibaateeyay aan
yaman markiiba waxay dhaheen meeshaan madiina shacab la yiraahdo xerada ugu horeysa oo yaman laga aasaaso waa dadkii loo aasaasay waxay dhaheen dadka muslim waa lama qaadayo waa dad aan u gurmanin way anigu waxaan dhihi lahaa wixii siinaysa halka ku sii beera waxa siinaysa halka ku sii anigu waxaan dhihi lahaa okay dawlad noo hadasho 500 Soomaaliyeed wali aniga 500 qiyaas ahaanteeda waa inay ka badan yihiin dhici karto ma garatay meedadka adoo indhaha saar ani meedadka indhaha saar 400 iyo xoogaa waa arkay 400 iyo xoogaa waa arkay okay oo meedadka macnaha markaan ku daro kuwii badda oo aan nadarta aan dhahay qaarada arkayna jirtay markabka labadii dhinaca labadii jambo say 500 qayb waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo markabka goobweyn ee ku hoobteen 500 dad gaaraya wali meel ma ka maqashaydo la hadalhayo ama idaacada ka baxaya ama barnaamij sidoo kale oo la duubay oo sida aad qof soo survive garoobo oo ka shaqeynaya niyaho wali maan arkin sababtoo maantay macnaha wali qof Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya ama dad caadi oo si private aga shaqeynaya waa arkay qof idaacad soo fariistay xabadan kugu daray waxaan waa ka ilooway yaman ay kala waydiishay ku leeyahay yaman laba arin bay nagu dishay shabaqaas dadka laayay kooda dadku markaad aragtid shalay soo duuleen oo dhaxda markaan soo mareyna saan markaad dhahdid wajigooda de kalluunku wuxuu jecel yahay bishimaha meelaha jilicsan oo cunaa bishimaha indhaha dhagaha meelahaas marka qofkii marka saan diray Allah maba karinayso qofku ahay qofka marka indhaha laga baxo bishimihii iyo wixii laga baxo de ma garan kartid koo taas way nagu dishay yaman waxay kale nagu dishay askaray noo meesha shacabka oo dadkii survive ka dhaheen qof ma guurma gartiinayna dhaheen qofka xabaday ku dhufanayeen qofka dhowr qof xabaday ku dhuftayna jirto oo dhintay oo hadda ilaa hadda wax sheegan ma okay dadkii aad ka soo wada badbaadeen markabka adigu hadda wada la fadhida saaxiibadaadii markabka aad biriga wada saaradeen mar dama maragtay qaarkood wallahi hadda mid Mareykanka ila jooga saaxiib baan nahay maxamed Cumar oo la yiraahdaa mid kale in Kansas u degan hadda rag kale mid kabtanka chiefki waxa la ii sheegay inuu joogo Germany Cabdiyare halkaan ka salaamaya su'aasha kale ku weydiin waxaad ka dhawaajisay inaad wiil yar ka haysay ninaad ku sheegaysay Axmed Dey isaguna uu gabadh u dhalay ka xeeyay wiilkii aad ka haysay meel haysa hadda niyaho markaan ka xeeyay waxay sameynayeen qolooyinka MSF ta ilmaha yar yar hospitaalka lagu hayo waalidiintooda u sheegayeen waalidiintii oo mar kale soo badbaaday ayaa aan u geeyay runtii horta maalinta markaan geeyay cunugoodii oo fiican oo labisan hooyadii iyo odagii aad ay u ooyeen sababtoo cunuga hore ka dhintay cunugana u soo badbaadiyay aad iyo aadna macnaha way ugu duceeyeen okay dadka dhintay ka soo ciyaal lumay oo waalidkood ka lumay ma jireen niyaho maya dadka because aad iyo aad arintaas aad iyo aad loo ilaalinayo waa arin tiraanya leh waxaan doonayaa inaan barnaamijka dhameyn Axmed inaan ku weydiiyo intii aad soo saareed markabka laga soo bilaabo Muqdisho ilaa Xadramud ilaa Cadan xilliyada bay kugu naxin badnay marna ma isticaawo dhibanaysa ma dhaafaysid والله أنا مركي وحيقول نحب بدن مركان مكلا إيماني مكلا يعذن أنت يهابين كهرية عن سومرين بدوين تقردوف ماشي إسكا جلان بدعس قردوف ملا بدعس قردوفو ماشي كورنها سبن كأو ماب كسوماليا ماشي مركي لمريا وبدي متي يبد كعسن أيام ماشي إسكو هلان وماشي بد وأذى وكعسنتها ماشي راكبتها وقارقود وكو قدومان وحدا شيء لكن إذن كور دباتيسن أو قحي والعقل ذي كقاضي ومركبكي دور كل أوقف لصاري مركبكم مقدشة كبحي واحد قراعني سينبالي كبن يليل الله يهيسو نيو أنا هرت عيالك حافظة هاي مركز I don't know لكن ومغلى كيلر إيو صعاب بدل الله ونحرق فنانين أو مال عمرتين أو ده موسيقى ده بحيث لكن نيو مصيبة كده بس أنت وحكي مركز روضة فرح سنين حتى الحمد لله ودن كي نبعتدي وحي حتى كبحدينا والله في عنا هيلس برنامج كقيب طلبات الحمد لله كهذا الله كهذا الشيء كستون ودت كانوا بلغ قاعد دونا ولمن قبل لك يا واكرتي برنامج كان كوحيga waxaan ka dhigi doonaa sida
aad uga qaxday haddana uga carartay tahriibtii magaalada cadan ilaa Saudi Arabia sheekadaada waxa ku jirta oo iga sheekaysay in adiga dhowr qof kale oo hawd meel la maraya oo dooxooyina in waxaan bini aadan mahayn ay idin erideen idin dhagxiyeen ulo waaweyn ku soo tuureen idinkuna habeenkii dhan aad kursi akhriyeen ilaa inta waagu uu ka bareeyay waxaad kaloo iga sheekaysay meel biyo mareena oo damacdan biyaha ka cabtaan oo wax aad u weyn ilaa baa weyn oo ku soo dhacay oo biyihii sanqar badan ay ka baxday oo aad ka dideen barnaamijka kama gaarno waxa doonay qaybta labaad inaan ka dhigo laakiin waxa doonayaa sheekooyinkaagii intii aan ku dhageysanayay wax badan baa iga soo kordhay waxaad ii sheegtay inaad tahay maxamed reer marka oo marka nanista lagaga yaqaan maxamed nastax marka liiga xagga nastax halkan kan iyo laab macnaha hal qabsigeyga kal iyo laab marka qofku wixii lagu arka lagu dhajiyaa hal su'aal baan ku weydiinayaa sidee lagu cadeeyay inaad nin Carab oo Yemeniya tahay oo aad marka ku fushay ama dadkii fuuli aad wada tiraadeen Yemen baan nahay oo waxaan doonaa dalkayga inaan tago niyo horta barnaamijka laab la kaca oo dadka lagu soo kiciyay ahayd programkaas waxba kama jirin sababtoo ah meesha management ma jirin maleeshiyada haysteen marka waana la kireenay lacagna laba lacagood aan laga qaatay lacag oo jaaliyada la dhahayo oo warqad been aan loo sameeyay maxamed waxa ugu maqaala ah kabtanka markabka in bahashan halo uu ku hadlayay raadiyaha markabka oo uu lahaa Yemanta waxaan sidaa intaasoo kun oo qof oo Yemeniyiin marka muuraaqad siltina